gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka Sweden ee Soomaaliya. kulanka oo looga hadlayay xiriirka labada dal ayaa waxa uu sheegay safiirka Sweden oo Soomaaliya in Sweden ay ka go'an tahay taageerida iyo garab istaagga dawladda federaalka Soomaaliya. waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda Sweden ay ku dadaali doonto sidii ay uga qayb qaadan lahayd mashaariicda dhinaca horumarka ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho laga sameynayo isagoo u mahadceliyay duqa Muqdisho. maanta waxaan ka doonnay waxyaabo badan oo labadeena dhinac dan noo ah. Muqdisho waa meel muhiim ah marka laga hadlayo amniga waddankan. marka Sweden loo eego Soomaalidu waa muhiim waayo boqolkiiba hal ka mid ah dadka Sweden waa Soomaali asalkood. Sweden waa mid ka mid ah deeq-bixiyaasha ugu ballaaran ee Soomaaliya si fursado loo siiyo mustaqbalka marka loo eego dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo waliba horumarinta xiriirka iyo sidoo kale amniga. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo dawladda Sweden garab istaagga iyo taageerida ay siiso dawladda federaalka Soomaaliya isagoo u mahadceliyay safiirka Sweden ee Soomaaliya. Andres oo aan maanta kulan dheer wada yeelanay ugana wada hadlaynay sidii maamulka gobolka Banaadir iyo dalka Sweden uga wada shaqeyn lahaayeen horumarinta caasimadda dalka. safiirka waa in muddo aysan naqaanay markaan wasiirka ahaana maanta waxaan uga mahadceliyay dalka Sweden sida ay Soomaalida xaggan ugu soo dhaweeyeen ilaa ay haddana diyaarku ugu yihiin dib u dhiska dalka inay ka qayb qaataan. waxaan uga mahadcelinay sida ay mashaariicda dhalinyarada shaqooyinka loogu abuurayo iyo u danaynayaan. kulankeenu kulan runtii wuxuu ahaa aad iyo aad muhiim u ah. waxaan ka siinay warbixin xaaladda uu marayo gobolka Banaadir iyo horumarka aan sameynayno dhanka amniga. waxaan isla garanay in aan sii joogtayno wada shaqeynta iyo xiriirka ayagana waxay ballan qaadeen waxyaalaha annaga mudnaanta noo ah inay naga caawin doonaan. waa mahadsan.